الإرشاد فاونديشن iyo culimadii iyo dadkii ka soo qayb galay iyo dadkii waqtiga geliyay in ay soo abaabulaan kulan sida muhiim ah kulan mudnaa in xilli hore la qabto laakiin uu maanta waqtigiisa saxda ah yimid kulan mar walba loo baahan yahay inuu sii socdo uu soo ku ekaan maanta iyo maalmo la mid ah intaas markaan ka soo tago al-Irshad Foundation iyo Anti-Tribalism Movement af Soomaaliya haddii laga dhigana noqonaysa kacdoonka soo jeedka qabyaaladda waxaad moodaa inaan wax badan ka wada simannahay haddii ay noqon lahayd mujtamaca loo shaqeynayo marka la iskaga soo tago dhibaatada na haysata ee ah qabyaaladda Irshad Foundation waa wada kulannay waxyaabo badan baan ka wada hadalnay culimada wuxuu ugu wanaagsanaana xilligaas nooga soo baxay wuxuu ahayn conference inaan kasoo qayb galno ama barnaamijkan loogu talagalay la dagaalanka qabyaaladda al-Irshad iyo ATM insha Allah waxaan rajaynaynaa kulamo badan oo mustaqbalka inaan sii wada qabanno iyo culimada iyo aqoonta iyo weliba dhammaan bulshada Soomaaliyeed Anti-Tribalism Movement ama kacdoonka soo jeedka qabyaaladda siduu idiin sheegay sheekhu waxaan u bilownay muddo laga joogo hadda 4 sano iyo bar 4 sano iyo bar markii haddaan islahayn kollayba waxaa soo bixi doona culimo ama dad Soomaaliyeed oo isku iman doona hawshana ka hadli doona meydiyada markaas ama iyagaan daba raaci lahayn balse anaga xilligaas waxaa noo muuqatay dhibaato taagan laakiinse dad badan ka hadlin dhibaato markii Soomaaliya aad weydiiso uu ku leeyahay dhibaata jirta qabyaaladda ma haysata balse inuu qofku tallaabo ka qaado ama inuu qofku ficil la yimaado ay adkayd anagoo dhalinyaro ayaan bilownay waqtigu waadkaa xaaladdu way adkayd aqoonteeda yarayd dhaqaalaha iyagaa yaraa fursadaduna way yarayd muddada maanta jirnana waa laga sii yaraayo fikirka ama howlaha community workan way nagu sii yaraayeen balse alxamdulilah dadaal dheer kadib 4 sano kadib waxaa noo suurta gashay inaan adduunyanaha meelo badan gaarno inaan wadankii hooyo muddo aan ku laabanno dhowr jeer inaan magaalooyin kala duwan wadankii aan tagno Yurub iyo Maraykanka aan gaarno Soomaalida ku nool aan la hadalno maantana ka mid nahay ururada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay jira u taagan bulshada inay wax u qabtaan kollayba insha Allah dadka iga dambeeyana hadallada iyaguna way ka sii hadli doonaan qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay balse haddii aad eegto boodka waxaa lagu soo qoray in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxaad moodaa marka inaan maanta anaga ku baraarugnay ilaahay kuma bedelaa muumad ma bedelo ilaa isbedelku igu naftooda ka yimaada maahane haddaba haddii aanu sii fadhino aanu dhibaatadan jirta maaluulba ka hadalno balse una ficil ka imanin waxaad moodaa dhibaatada waa lagu sii jiraya waxaanu idhahnaa 20 sano ka badanba dhibaato jirta 20 sano kale way soo soconaysaa haddii uu qof walba intuu fadhiyo hadalka uun hayo as qofka hadduu ficil ku daro dhibaatada jirtana la iskaashado iyadoo community la yahay iyo qof walba kaalintaada yar haddaad ka dadaasho isbedel weyma karaa waxaa leeyahay steebka bilowdana sii wadno dhalinyarada sideeda qabyaaladda u saameyn kartaa siyaabo duwan bay noo kala saameyn kartaa haddii ay noqoto dhalinyarada aniga iyo dadka ila midka ah aan nasiib u yeelan inay wadan nabada ku noolaadaan balse fursad u helan inay wadan aan wadankoodu yahayn inay fursad waxbarasho shaqo dhan walba ay ka helaan kan aniga ila midka ah ee wadankii ku noolaan weli fursadaas helin dhibaato ayuu ku sugan yahay haddii noqon lahayd inuu xagjirnimo ku biiro haddii noqon lahayd inuu camal la'aan ay dhacdo haddii noqon lahayd inuu taariikh si wadankii uga baxo kii halkan ku koraya ama wadamada wax ku barta haddii uu damaco inuu wadankii hooyo tago si uu wadankii wax ugu celiyo ama uu ka mid noqdo isbedel ka jiro way adkaanaysaa inuu noqdo markoodaad horta lama eegayo aqoontaada iyo kartidaada iyo qualitigaada balse waxaa la eegayaa qolam uu yahay وزارة هبل مجرى كتير هبل باسكله وحن مسلين كتير هبل باله ما ممكن كم قد قال كتير هبل باله هذا بس يعني مركل الله معصيه اللي يراد الجيل في سوكرة يا مدن يرد سوكرة سيا كم من قطوس بدل كوطن كجرو ها عاوي سام مدتكور ها عاوي هدي أنا مسجل الله قلنا كوي وقضاء إلى ما دينا كلا تجيب أنا كل وطن كجوجا حد جيبته مليار Soomaaliya ama gabar yar oo Soomaaliya oo walaalkeed oo muslima oo Soomaali la oo damacan dareen dhexmaray heerka guurka oo waxa ugu wanaagsan oo la isku taageeraa midnayd marka loogu diido gabadha qolada uu yahay oo la yiraahdo reerada isma guursano balse qof kale oo aan Soomaali ahayn muslimadu waa walaalaysan ama muuminiin oo waa amisanahay laakiin aan Soomaali ahayn marka gabadha soo doontay in la yiraahdo nin muslim baa soo doontay aan laga sii hadlin كسومالي بقوا مسلم إسرائيل سومالي أوجيس كلا مسلمين وسومالي ونقول الله عز وجل كاذين يقامنا فلسافة جديدة محيا لقوله بالله أنت أدرس في الجنة الحياة ويا قدرنا هذين ده أنا صرت بشوي سومالي جنا الله كلهم
hooyadaas waxyaabihii nagala hadlaysay markay ogaato waxyaabaha qabanayeen casuuntay gurigeeda waanu tagnay. laba gabdhood baa u joogay. labada gabdhoodba waxaa ag fadhiya ragaa Soomaaliya oo qabay oo ay tiri waa xaajiya caruurta gabdhahooda raggoodii. waxaa jira gabdhahoodu waxbarasho adduunna way barteen, aadaab iyo xushmo iyo akhlaaq iyo quruxda gabdheedna Soomaalitii laga rabay way leedahay. balse meelin bay tiri rag Soomaaliyeed oo guursaday. maanta si waxay guursadeen ajaanib bay tiri. dhibaato kuma qaban tiri, noloshooda waa ku faraxsan, laakiin waxaa kasii jeclaan lahaa wiil Soomaaliya oo Soomaali kala hadli karo dhaqankeeda fahmi karo inuu ahaan lahaa. maxaa ka nasiibkan hooyada Soomaaliyeed oo caruurteedii islahayd rag Soomaaliyeed waa ku hesho, balse raggii Soomaaliyeed ay rag badan ku diideen gabadhu qolobay tahay. haddaba marka ma inaanu sii fadhino aanu weli iska sii sugnaa, mise waxaa naga waajibaa inaynu dadkayga ficil ka gaarno arrimaha caynkaas ah. adiga waddanka jooga haddii qof aan madow ahayna caddaan uu ku yidhaahdo waddankaagii ku laabo madow baa tahay way ku gudaysaa, waa lii cunsuriyey baa leedahay. waa weel adag inuu waddankaagii yahay laaks waddan relax. qofka Soomaaliga ee waddankii kula leh markaad tiraahdo Soomaaliya waxaa tahay iga dhiman adigu ma buuxdin, anaa Soomaaliya dhaba. adiga Soomaaliga dhabkaasoo kan idinka dhexdiina laisku sii degan yahay, sidee baa qabaa in horumar loo gaaro. markay timaado culimada ama waalidiinta ama jiilka naga horeeyaba, idinkoo dhan ma wada xumudyeynayaan, anigu ma wada eedeeyo aabbayaasha, laakiin hooyooyinka marka la eego kolay laga yaabaa inay naga dadaal badan yihiin haddii raggaba aan isku darno, laakiin aabbayaasha hawl fiican baa bilaabatay maanta, laakiin waa hawl muddo in xilli hore la qabto. aabbayaashu doorkay ka ciyaari karaan ama jiilka ka horreeya jiilka dambe ugu sii gudbin karaan. waxa aad ku dhaqantaan ratiga Soomaalida waxay tiraahdaa ratiga dambe ratiga hore saaqaadkiisu leeyahay. waxaad adigu guriga ku haysaa ama ficilada aad ku dhaqmaysa inuu wiilkaaga ama gabadhaada ay ku dhaqanto beri inaad uga xumaato maaha. adigu markaad maanta u ololayso arrimo la xiriira qabyaaladda, beri bay jiilkii kale haddii uu sidii uu ku dhaqmo, haddii aad tiraahdo waddankii dhibaata ka jirto dembiga anagu ma lihin oo waxaan idinkeedii ka dhaxalnay. marka sida laydinkaga dhaxlay wax wanaagsan wixii kolayba maanta ka dambeeyay iyo maalmo xigada qabyaaladda iyo dhibaatadeena aan ka wacyigelina kuwa soo kordhaya, idinkuna wixii ku dhaqmo iska jooji. markay timaado examplada soo qaadanaya inta hawsha ku jiray, nin aan gudnaa inuu maanta nala joogo balse aan filayo inuu dantoonu saamixin oo dhowr kulan oo ATM aanu soo qaban qaadan nagala qayb qaatay oo la yidhahdo Maxamed Mooga ayaa jira. waxyaabihii uu nooga sheegay oo isagoo shakhsi ahaan ku dhacday nala wadaagay waxaa ka mid ahayd in isagoo maalin xilli salaad maqrib la soo gaaray in xilligii salaada loo istaagay, in xilligii salaada markii la xiran lahaa sida dhaqanka qof walba qof kale ku rixa adigu naga bixi salaada adigu naga bixi, in isagii markii dambe la isku raacay. salaadii markii wallahu akbar yiri uu salaadii xiray inuu dhinaca dambe ka soo qayliyay war joojiye salaada, ma waxaad weyseen qofaad ku xirataan maanta salaadana ma hebel baa salaada ka bixinaya. hebel laguma eegin wadaadnimadiisa ama culimadiisa, laakiin reerka uu yahay baa lagu diidanaa inuu salaad ku tujiyo. meesha nala gaartay waa salaadii ilaahay baa la hortaagaya, wejigii ilaahay xilligaan ilaahay cafis dalban lahayd baa la hortaagayahay, balse qofku waxaa lagu eegayaa qolada uu yahay iyo qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay. adiguba isweydiiya haddii ay kugu dhici lahayd dhibaatooyin saasa sidee kuu saameyn lahayd. waa adagtaa inaanu isgelinada xaaladaas because nugma aysan dhicin, laakiin haddii la rabo isbeddel dhab inuu dhaco, haddii la rabo dhibaatadan in la joojiyo, keliya waxay ku istaagi kartaa inaad adigu ka mid noqotid joojiyaha dhibaatadaas. sideebaad uga mid noqon kartaa? xagga iskool baa noo yaalla anti-tribalism movement, haddii aad more information aad danaynayso insha allah ilmoodan hadda inaan kolay idinka su-aalahaas idinkaga jawaabno, iyo inaad ka mid noqoto xubin ka mida kacdoonka soo jeedka qabyaaladda. laga yaabaa inaad isleediin dhallinyarada yaryar ee qabyaaladda la dagaalamay maxay tahay, laakiin wixii naga dhiman ama fikir ah adigu ayuu kugu jiraa walaalkayga. waxaad nagu soo kordhisaana waa wanaag. insha allah waxaan rajaynaynaa inaad hadhowta saacadaha dambe membershipska ama foomkaas inaad ka mid noqotaan, dhibaatadaas lagu joojinayo. wixii macluumaad ay soo kordhan insha allah waa joognaa, waana raalli baan ka nahay inaan ka jawaabno. waana mahadsantiin mar labaad waxaan u mahad celinaya Al Irshaad Foundation.